bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal. aadan maxamed cali 27 jir ah ina caasho cumar ku dhashay hiiraan. cabdishakuur xaaji barsanji 25 jir ah ina muslimo abuukar cabdi ku dhashay xamar, kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka, gaar ahaan kooxda Daacish. eedaysanaha koowaad aadan maxamed cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Daacish una qaabilsan yahay qaybta fulisa dilalka qorshaysan, isagoo ka soo howlgalay gobollada Banaadir iyo Bari, qaybna ka ahaa fulinta dilalka soo socda. taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 9aad 2018 waxay isaga iyo laba ruux oo kale Boosaaso ku dileen marxuum Ekis Laba Xidigle Axmed Hurfe Jaamac oo ahaa taliyihii gaadiidka madaxtooyada Puntland. taariikhdu markay ahayd 25kii bishii 10aad 2018 waxay sidoo kale magaalada Boosaaso ku dileen marxuum Cabdiraxmaan Aadan Cali oo ahaa ganacsade sharaab ku iibiya magaalada. taariikhdu markay ahayd 19kii bishii 1aad 2019 waxay isaga iyo laba ruux oo kale degmada Howlwadaag ku dileen laba marxuum oo lagu kala magacaabi jiray marxuum Axmed Maxamed Nuur Axmed Shiiqaal iyo marxuum Cabdulaahi Maxamed Cali Cabdulaahi Dheere. taariikhdu markay ahayd 27kii bishii 1aad 2019 waxay degmada Yaaqshiid ku dileen marxuum Ekis Dable Xooga Axmed Cabdi Xuseen iyadoo ciidamada amnigu ay soo qabteen kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray fulinta dilka marxuumka. eedaysanaha labaad Cabdishakuur xaaji barsanji waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Daacish, ciidamada amniguna ay qabteen isagoo gacan ku siinaya eedaysanaha koowaad in uu ka baxsado ciidamada amniga. dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane aadan maxamed cali oo uu ka hor cadeeyay garsoorka inuu ka tirsanaa kooxda Daacish oo uu kaga biiray gobolka Bari uuna ka mid ahaa qaybta fulisa dilalka qorshaysan, eedaysanuhu wuxuu cadeeyay in isaga iyo laba ruux oo kale ay magaalada Boosaaso ku dileen laba marxuum oo kale ah marxuum Axmed Hurfe Jaamac iyo Cabdiraxmaan Aadan Cali. sidoo kale wuxuu eedaysanuhu sheegay in ay kooxdiisa u soo bedeshay magaalada Muqdisho oo uu ka fuliyay dilal qorshaysan oo ay ka mid yihiin laba ruux oo lagu dilay degmada Howlwadaag oo kala ah Axmed Shiiqaal iyo Cabdulaahi Dheere. sidoo kale wuxuu sheegay eedaysanuhu in ay taariikhdu markay ahayd 27kii bishii 1aad 2019 degmada Yaaqshiid ku dileen marxuum Axmed Cabdi Xuseen iyadoo ciidamada amnigu ay soo qabteen kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray fulinta dilka marxuumka. markay dhageysatay maxkamaddu markaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo ku sugan rugta booliiska suuqbacaad ee degmada Yaaqshiid ay maqleen rasaas ka dhacday dhanka suuqa. markii ay tageen goobta ay xabaduhu ka dhaceenna ay arkeen marxuum Axmed Cabdi Xuseen oo ay xabado ku dhaceen, kadibna ay ku ogaadeen isla goobta in uu dhaawac gaaray mid ka mid ah raggii fuliyay dilka, sidaasna ay ugu tageen isbitaalka eedaysane aadan maxamed cali oo ku hubaysan bastoolad biljim ah. markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumiintiyo ay ka mid yihiin caddeynta iyo qiraalka ee laga qoray eedaysanaha koowaad, sawirrada iyo qoraallada caddaynaya dhimashada marxuumiinta, bastoolad biljim ah iyo 10 xabadood oo uu watay eedaysane aadan maxamed cali, jawaan iyo marooyin uu eedaysanaha koowaad ugu talagalay in uu ku qaato qoriga marxuum Axmed Cabdi Xuseen dilkiisa kadib, 5 simikaar oo uu eedaysanaha koowaad u isticmaalayay la shaqaynta kooxdiisa Daacish.
markay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada dacwada oo kale ah xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanayaasha. sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile daacish aadan maxamed cali uu yahay dembiilo galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo cabdishakuur xaaji barsanji haddii aan loo haysan dembi kale. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. wabilaahi towfiiq.